الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عبد الرحمن أحمد وكم قاعدين محمد جعلو واتا محمد جعلو برامج كفتن كايات ما أنت إن بدن طيب كتاي أحير من وقص لك رتاعه مثلا والله هرت وقت بدنا سوق قصلي ما أنت حتى لو جرى وكلاني صاحبك يوقع قصتي السوق يجي شيء كيناي أرين هذا كور كود عده أو ninka waa saaxiibkay isku meel aan ka shaqeynaa wuxuu yiri saaxiibow baabuuran rabaa inaan gato wuxuu yiri saaxiibow lacag yar aan haystaa gabar walaashay waxa jirta hadda ka hor tahriibti oo badda gashay gabadhii doontii badda ay kula qalabantay gabadhii waa dhimatay waxaan rajaynayaa inay lacag ii soo dirto lacagtay ii soo diri doonto ayaan rabaa lacagtayda inaan ku kabto oo baabuur ii soo gadidaan rabaa markan arrintii markuu iiga sheekeeyay mar aadaan u qoslay marna waa murugoodi mar waxaan ku qoslay fikir xumada ninkaas marka kalena waxaan ka murugoodi gabadha dhimatay oo Soomaaliyeed markan qosol kulli waa la iska qosli doona oo wadanka dayba nabadgelyo ay ka jirto waxa qosolka saab iska imaan doona magac lix xaraf ka kooban halka xaraf koowaad markii laga jaro xarafka koowaad lixda xaraf markii isku qabto magac rag uu noqonaa xarafka koowaad markii laga jarana magac dumar uu noqonaa markii labada xaraf ugu horeeyay laga jarana waxa ay dadka jecel yihiin noqonaa hay niyo taas waa ka fikiraa laakiin بسم الله الرحمن الرحيم أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد الله عبد علي كم عقدير سكاكا وأنت سكاكا كسر برامج ماديسكا أد بقول ده هاي ما شاء الله رتي ماديسكا وأدري مقرتها إن مارتي كفتن ما دالوا طبعاً مقعاقة هذا واشك صح مقعاقة ما أعرف كوين مقعي مركا حسابية وحكا كوين هاي هذه قياستي 8 حرف تعرف ويقولتا واكهوا وهذا هذا وما صدق بحرب إنه سؤالان كويدي ما شاء الله ويدي كرتا تولوين كاسيس كتير تولوين كتلك دلك أيد الماء مقالوين واسكون أكسرنا ما شاء الله إنك استوى الدنيا وتودينا ده سكشك عم كلية إنه سؤال شان أكيد تولو أما مقالو سديت حرف كوما لو ده حرف كورة اسمك اللي قبل عيو noqonaysa wax maartay dadku ay jecel yihiin ay ku shaaxaan niyahow hadii aan isku dayo su'aashaas jawaabteeda ma ila qof magacaygu saddexan waa daahir xasan cali soo daahir xasan cali soo daahir xafileena muqdisho ku dhawt aad iyo aad daahir magacaaga قال ما قنقطع اي اسكت داير لاخر بس داير بس يسالي ولا عارف يسالي وقع كذا ما قنقطع قد قالوا اقرا كرا تا معناها ان قرو لكن تا مسكحه اوكي سؤالك مدينه حشكتا تولب اسم مقالو dalkeena kamid ah 8 xaraf ay ka kooban tahay 8 xaraf 8 xaraf ay ka kooban tahay labada xaraf ugu horeeyay markii laga jaro laga bixiyo waxa soo baxaayo waxay dadku ku shaaxaan ama waxay dadku jecel yihiin fahantaad marka magacaasi iyo waxa laga rabaa iyo waxaas dadku jecel yihiin ay ku shaaxaan 8 xaraf uma kooban tahay labada xarf ugu horeeyay waa laga jaraa labada xarf ugu horeeyay laga jaro waxa soo baxaayo waxay maartay dadka ay jecel yihiin naadir cabaan naadir ay cabaan marka duuladaas magaceed iyo waxaas la cabaan duuladaas magaceed isku day waxay noqonaysaa naadir waxay kala noqon kartaa oo wax la jecel yahay ma ay saaxiibtaas okay ay saaxiibka magacaaga gadaal ma aqrin kartaa magacayga hada isku dayo كريم يا كريم سجادي لي أنا قصي كريم يا كريم سجادي كريس اسمه كريس يا كريم
ما تابعي هي نيكاس واش ويدينين هاي ما كجواب كرتا من داس ما يسا igu soo celi amar tuulo mis magaalo oo gobolkeena mise dalkeena ku taala magacana maartay 8 xaraf ay ka kooban tahay mid koobaad 8 xaraf ay ka kooban tahay labada xaraf ugu horeysa markii laga jaro waxay noqonaysaa wax ay dadka jecel yihiin oo ay cabaan sharaab ay noqonaysaa marka magacaasi waxa laga rabaa iyo sharaabkaas magaciisa sharaabkaas taas ma isna taas waa tahay tuuladaas magaceeda aad i weydiisay waa mushaani haddii laga reebo labada xaraf oo ugu horeysana waa shaani lixdaas xaraf ee dhameystiran waa magac rag ayuu keenaa koowaad laga jaro mise xarafka koowaad laga jaro waxaa imaanayo magaca dumar marka labada xaraf ugu horeysan markii laga jarona waxay dadka jecel yihiin ay imaanayo waxay tiri waa lix xaraf magac ugu horeeya haddii isku qabto oo magac totally lixda xaraf magac ragaa imaanayo hal xarafka ugu horeeya haddii laga jaro magac dumara imaanayo labada xaraf ugu horeysa haddii laga jarana waxaa imaanayo wax isku daya insha Allah su'aashaas jawaabteeda markii lixda xaraf ee magac nin ahaan la dhaho waa Jamaal soo ma garan waa magac Soomaaliyeed markii xarafka ugu horeeya laga reebo waxa soo baxaya dhad magac dumar waana Amaal markii laba xaraf laga reebo waxa soo baxaya dhaday waa magac dadka dhan wada jecel yihiin waana Maal marka